koowaad, nin tuulo ku noolaa ayaa 3 xayawaan midkood ka soo xaday ukuntiisa. Xayawaanadani markii ay ka war heleen in ukuntooda qof uu soo dhacay, waxa ay go'aan ku gaareen in magaalada oo dhan ay wada holciyaan, afkuna waxa ay ka daayaan dab. qayb ka mid ah tuuladii markii ay gubeen ayaa waxaa ka war helay boqorka tuulada. kadibna waxa uu xayawaanada ka codsaday in kiiskooda uu baari doono, ukuntoodana qofkii qaatay gacanta uu ku soo dhigi doono. inta baaritaankooda uu socdona, dabka iyo holcinta tuuladuna ay joojiyaan. xayawaanadii waa ay aqbaleen. kadib boqorkii waxa uu soo wacay ninka ugu qabiirsan tuulada. kadibna ninkii waxa uu bilaabay inuu faraskiisa soo qaato, kadibna uu raadkiisa raaco qof walba ee tuulada ka baxay. ugu dambayn waxaa la soo helay ninkii ukumaha soo xaday. kadibna ukumihii waxaa loo keenay boqorka. su'aasha taagan hadda ayaa waxa ay tahay 3dani xayawaan midkee ayaa ukunta iska leh. boqorkuna ma yaqaano, ninkii soo helayna ma yaqaano. haddaba adigu ma isku dayi kartaa inaad soo hesho